fikir hal daqiiqo haddii dagaal weyn oo dunida ah maanta bilaabmo maxaa dhici kara? dalal awood leh ayaa leh hub nuclear, qaarna waxay leeyihiin malaayiin askari. laakiin su'aasha ugu weyn waa dab ahaantii guulaysan kara. taariikhdu waxay xasuusataa laba dagaal oo waaweyn oo dunida bedelay. midkii ugu horreeyay wuxuu bilaabmay 1914 midka labaadna 1939. maanta dunida mar kale waxay u muuqataa mid xiisad ka buuxda daawada. dalal waaweyn ayaa isku diyaarinaya awood militari. haddii xiisadahan ay isku beddelaan dagaal, natiijadu waxay beddeli kartaa mustaqbalka bini'aadamka. qaybta koowaad, dalalka awoodda leh. marka laga hadlayo awood militari daawada, dhowr dal ayaa si gaar ah u muuqda. midkood waa Mareykanka. ciidankiisu wuxuu leeyahay tiknoolajiyad sare, diyaarado dagaal iyo saldhigyo militari oo ku yaal meelo badan oo dunida ah. dal kale oo awood leh waa Shiinaha. ciidankiisu waa mid ka mid ah kuwa ugu tirada badan dunida. sidoo kale waxaa jira Ruushka, dal leh hub nuclear aad u badan iyo taariikh dheer oo militari. hubka casriga ah. dagaalada maanta ma aha sidii kuwii hore daawada. waxaa jira diyaarado aan duuliyo lahayn, gantaalo fogaan dheer garaaca, iyo hub cyber ah oo xitaa burburin kara nidaamyada kumbiyuutarada iska baddaa bini'aadamka. hubka ugu khatarta badan waa hubka nuclearka. haddii la isticmaalo, saameyntiisa waxay gaari kartaa malaayiin qof. haddii dagaal bilaabmo, qabiilada qaarkood waxay aaminsan yihiin in dagaal weyn uu bilaaban karo haddii dalal waaweyn ay isku dhacaan. isbahaysiyo ayaa samaysmi kara. dalal qaar waxay taageeri karaan dhinac, kuwo kalena dhinac kale. laakiin dagaalka noocaas ah daawade ma saameyn doono keliya askarta iyo dowladaha. waxa uu saameyn doonaa dhaqaalaha, ganacsiga iyo nolosha dadka caadiga ah. saameynta dunida daawade, dagaal weyn wuxuu beddeli karaa khariirada dunida. dalal qaar ayaa xoog badan noqon kara, kuwo kalena waxay la kulmi karaan burbur. laakiin hal xaqiiqa ayaa jidha daawade, dagaal weyn ma laha guulaysta dhab ah. taariikhdu waxayna baraysaa hal cashir. marka awood iyo xiisad isku biiraan, dunidu waxay gashaa waqti khatar ah. su'aasha ugu dambaysa waa, ma ka baran doonaa taariikhda, mise taariikhda mar kale ayay iscelin doontaa? daawada, su'aasha ugu dambaysa waa, ma ka baran doonaa taariikhda, mise taariikhda mar kale ayay iscelin doontaa? ka fikir hal daqiiqo haddii dagaal weyn oo dunida ah maanta bilaabmo maxaa dhici kara? dalal awood leh ayaa leh hub nuclear, qaarna waxay leeyihiin malaayiin askari. laakiin su'aasha ugu weyn waa dab ahaantii guulaysan kara. taariikhdu waxay xasuusataa laba dagaal oo waaweyn oo dunida bedelay. midkii ugu horreeyay wuxuu bilaabmay 1914 midka labaadna 1939. maanta dunida mar kale waxay u muuqataa mid xiisad ka buuxda daawada. dalal waaweyn ayaa isku diyaarinaya awood militari. haddii xiisadahan ay isku beddelaan dagaal, natiijadu waxay beddeli kartaa mustaqbalka bini'aadamka. qaybta koowaad, dalalka awoodda leh. marka laga hadlayo awood militari daawada, dhowr dal ayaa si gaar ah u muuqda.
midkood waa Mareykanka ciidankiisu wuxuu leeyahay tiknoolajiyad sare diyaarado dagaal iyo saldhigyo militari oo ku yaal meelo badan oo dunida ah dal kale oo awood leh waa Shiinaha ciidankiisu waa mid ka mid ah kuwa ugu tirada badan dunida sidoo kale waxaa jira Ruushka dal leh hub nuclear aad u badan iyo taariikh dheer oo militari hubka casriga ah dagaalada maanta ma aha sidii kuwii hore daawaday waxaa jira diyaarado aan duuliye lahayn gantaalo fogaan dheer garaaca iyo hub cyber ah oo xitaa burburin kara nidaamyada kombiyuutarada iska badbaada bini'aadamka hubka ugu khatarta badan waa hubka nuclearka haddii la isticmaalo saameyntiisa waxay gaari kartaa malaayiin qof haddii dagaal bilaabmo qabiilada qaarkood waxay aaminsan yihiin in dagaal weyn oo bilaaban karo haddii dalal waaweyn ay isku dhacaan isbahaysiyo ayaa samaysmi kara dalal qaar waxay taageeri karaan dhinac kuwa kalena dhinac kale laakiin dagaalka noocaas ah daawade ma saameyn doono keliya askarta iyo dowladaha waxa uu saameyn doonaa dhaqaalaha ganacsiga iyo nolosha dadka caadiga ah saameynta dunida daawade dagaal weyn wuxuu bedeli karaa khariirada dunida dalal qaar ayaa xoog badan noqon kara kuwa kalena waxay la kulmi karaan burbur laakiin hal xaqiiqo ayaa jirta daawade dagaal weyn ma laha guulaysta dhab ah taariikhdu waxayna baraysaa hal cashir marka awood iyo xiisad isku biiraan dunidu waxay gashaa waqti khatar ah su'aasha ugu dambaysa waa ma ka baran doonaa taariikhda mise taariikhda mar kale ayay iscelin doontaa daawade su'aasha ugu dambaysa waa ma ka baran doonaa taariikhda mise taariikhda mar kale ayay iscelin doontaa